Taxanuhu wuxuu ku bilaabmayaa qori nagula soo taagay. Waxaynu kala baranaynaa jilaaga ugu muhiimsan ee taxanaha oo lagu magacaabo hakan. Xabad qunyar u socota ayaa si toos ah uga duulaysa wejiga, balse annagu ma hubno in xabaddu ay ku dhacdo. Dib aan ugu laabanno wixii hore ee la soo dhaafay. Hakan iyo saaxiibkiisa Memo oo wada nool, iyadoo alarmka telefoonka uu si joogto ah u qaylinayo, ayuu si caajis ah u kacay oo uu damiyay telefoonkii. Hakan ayaa soo toosaya kicinayana saaxiibkii Memo. Kadib markii ay labadoodu soo kaceen, waxay aadeen meel ay ku hamiyi jireen inay dukaan ka furtaan. Si kastaba ha ahaatee, weli ma iibsan goobta maadaama ay hadda lacag haysan. Hakan iyo Memo ayaa taagan daaqadda dukaanka oo ka sheekaysanayana sida ay u qurxin doonaan dukaankooda. Markaas ayaa arkaynaa in dukaanka mustaqbalka uu ku dhagan yahay magaca Billionaire Faisal Adam. Muuqaalkan xiga ayaan ku arkaynaa hakan oo dhex socda suuqa si uu soo booqdo aabihiisa Nasser Kogmas. Isagoo waddada ku sugan, hakan waxa uu la kulmay faadiyad lagu magacaabo Turkan, taas oo u sheegtay in mustaqbalkiisu uu dhowaan isbedeli doono, isla markaana uu ku talo jiro inuu sameeyo wax weyn oo ka duwan sida hadda uu yahay. Si kastaba ha ahaatee, hakan waxa uu meesha ka saaray saadaasha oo uu aaminay qadarka. Wax yar kadib markii uu yimi halkii aabihii, waxaa markii dambe ogaanaynaa in hakan uu yahay agoon uu korsaday Mr. Kogmas oo leh dukaan 600 sano jir, laguna iibiyo agabka qadiimiga ah iyo farsamada gacanta. Qorshihiisii ahaa inuu dukaan furto ayuu u sheegayaa. Aabbaha ayaa sidoo kale isagana xasuusinaya ganacsigii hore ee fashilmay. Hakan wuxuu isku dayay inuu aabihii ka dhaadhiciyo qorshahaas, isagoo u sheegay in dukaanku yahay dukaan cusub oo uu ku yaallo meel cajiib ah. Balse Mr. Kogmas ayaa iska yeelatiray. Taa beddelkeeda wuxuu u sheegay wiilkiisa in roog uu u geeyay gabar dalxiise ah oo maalin ka hor ka dalbatay. Faisal Adam, bilyaneerka gunta hoose ka soo shaqeeyay si uu ugu noqdo qofka uu maanta joogo. Mr. Adam, isku-duwaha guud Yusuf ee Layla iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda Masr. Layla ayaa ku wargelisay madaxdeeda inuu ka soo qaybgalo saxaafadda si uu ugala hadlo Hagia Sophia. Hagia Sophia waa dhaxal aad loo qadariyo oo ku taal Istanbul oo soo jirtay muddo 1500 sano ka hor. Shirkado badan ayaa u tartamaya dhaxalka iyadoo la tixgelinayo qiimaha aan la qiyaasi karin ay ku leedahay saxaafadda kulanka. Mr. Adam ayaa ka hadlay sida Hagia Sophia u tahay wadnaha Istanbul, wuxuuna la wadaagay qorshihiisa dib u soo celinta isagoo ku guuleystay hanaankii qandaraaska. Inta uu socdo, Mr. Adam iyo kooxdiisa ayaa la kulmay Gökhan Gültekin. Hagia Sophia kale ayaa la isku weydaarsaday salaani nasiib wacan oo ku saabsan tartanka. Hakan waxa uu rooga gaarsiiyey inantii dalxiiska ahayd ee si kumeel gaar ah u degan hoteelka ka fadhan. Kadib markii uu shaqadiisa dhammaystay, waxa uu arkay in saf loogu jiro shaqada shirkadda Mr. Adam. Hakan oo u baahan lacag ayaa shaqadiisa ka qoraya, wuxuuna gelayaa wareysiga shaqada. Waxaana wareysiga ka qaadayso Layla. Nasiib xumo, hakan ma haysto shahaado jaamacadeed, mana ku hadli karo wax luuqad qalaad ah. Layla ayaa ka codsatay inuu nasiibkiisa shaqo uu ka raadsado meel kale. Intaa markii ay u sheegtay, hakan ayaa iskaga tegaya meesha. Intii uu sii socday ayuu arkay gabar yar oo ku sigatay inuu ku dhaco chandelier. Hakan ayaa u soo cararay si uu u badbaadiyo gabadha yar. Halka Mr. Adam iyo madaxiisa nabad sugidda ay u koorgalayaan falkii geesinimada leh ee hakan. Kadib hakan ayaa mar kale isku dayay inuu aabihii ka dhaadhiciyo qorshihiisa ganacsi. Haweeney lagu magacaabo Susan ayaa timid dukaanka iyada oo raadinaysa shaar naadir ah oo talismaanig Ottoman ah. Waxay ku sheegtay in shaarku uu yahay mid u gaar ah macmiilkeeda, waxayna soo jeedisay inay bixiso lacag aad u badan haddii loo baahdo. Mr. Kogmas wuxuu ka been sheegay inuusan hayn shaarka, inkasta oo uu ku dhex qariyay maqaasiinka. Hakan ayaa ku adkaystay inuu aabihiisu iibiyo shaarka, laakiin Mr. Kogmas ma dhageysan. Waxay kadib Memo ayaa goobta yimid isagoo raadinaya hakan si uu ugu wargeliyay in gurigoodii laga soo saaray maadaama ay kirada iska bixin waayeen. Waxaa soo baxday in Memo uu ku qamaaro lacagtii kirada ahayd ee hakan uu miiska saartay. Maalin kale oo maqrib ah ayuu Gökhan Gültekin Masar geeyay meel qarsoodi ah oo uu gaarigiisa ku dhex qariyay. Kadib waxa uu damcay inuu laaluusho Masar si uu ugu bedelo inuu Mr. Adam ka leexiyo tartanka. Markii uu maqlay hadalka Masar, waxa uu xarig ku dilay ninkii. Maadaama hakan iyo Memo uu ganacsigooda fashilmay, waxay go'aansadeen inay shaarka ka xadaan dukaanka Mr. Kogmas oo ay ka iibiyaan Susan. Hakan iyo Memo ayaa Susan kula kulmeen maqaayad si ay ugala xaajoodaan qiimaha. Hakan ayaa u sheegay in shaarkan yahay 7 tirooyin. Macmiilka Susan ay la macaamilayso oo ay la hadlayso cid kale ma ahay waa Masar. Mr. Kogmas ayaa goobta yimid shaarkan ka qaatay kuna dhahay waan idin sheegay shaarkani iib ma aha. Ciidamadii Masar ayaa xabado goobta ka riday, waxayna dhowr xabadood ku dhaceen aabbaha hakan. Hakan ayaa isku dayay inuu aabihii geeyo isbitaalka, balse aabihii ayaa ku adkaystay inuu geeyo farmasiga saaxiibkiisa, halkaasi oo kula kulmay milkiilaha farmasiga Kamal iyo gabadhiisa Zainab. Kamal ayaa durbadiiba qaaday dhaawacii si uu u dabiibo, halka Zainab ay isku dayeysay inay dejiso hakan. Waxaa la soo qabanayaa saaxiibka hakan ee Memo, jidana loogu geysanayaa si looga helo macluumaad ku saabsan hakan iyo shaarkiisa. Aan ku laabano farmasiga. Zainab ayaa hakan geynaysa meel qarsoodi ah oo Kamal uu ku daweynayo aabihiisa. Hakan waxa uu aad uga carooday Kamal inuusan aabihii geyn isbitaalka. Si kastaba ha ahaatee, Mr. Kogmas ayaa u sheegay wiilkiisa in laga daahay taas oo ay tiisu dhamaatay. Waxaana dhahayaa Kamal iyo Zainab ayaa runta kuu sheegi doona. Waxa uu kula taliyay hakan inuu rumaysto awoodiisa, taasoo ah masiirkiisa, isagoo intaas ku daray inuu ka tagay uu dhimanayo. Kamal ayaa u soo bandhigay hakan iyo inantiisa
inay mas'uuliyad ka saaran tahay inay ilaaliyaan shaarka oo ay ka ilaaliyaan kuwa xun. Zainab ayaa u sheegaysa Hakan inuu yahay ilaaliyaha, waajibkiisuna yahay inuu joojiyo kuwa qaab xumayaal ah oo doonaya inay burburiyaan Istanbul iyo adduunka oo dhan. Hakan ayaa ku wareeraya marka uu runta maqlay, laakiin weli ma rumaysna. Kamaal ayaa ku amray inuu garanka awoodda leh uu xirto. Kadib markii uu xirtay jirkiisu, wuxuu bilaabay inuu galo shaarka kuna sameeyo xabadkiisa calaamada ilaaliyaha. Zainab ayaa markaasi xabad ku riday si ay u tijaabiso in xabaddu ay saameyn ku yeelanayso iyo in kale. Waxaa soo baxday intan ay la mid tahay muuqaalkii aynu ku arkaynay bilowga qisada. Xabadda ayaan waxba u dhibayn, taas oo caddaynaysa inuu yahay difaac. Muuqaalka xiga, Kamaal wuxuu Hakan siinayaa cashir taariikhi ah oo degdeg ah oo ku saabsan halka uu ka soo bilowday dagaalka aan dhimanin iyo dagaalka ilaalinaya. Kadib waxa ay noo soo jeedinayaan Mehmed guulwado u helan inuu Istanbul ka badbaadiyo 7 qof aan dhiman. Habeenada ka mid ah wuxuu Mehmed helay hab uu ku garto oo uu ku dilo kuwa waara. Waxa uu helayaa 3 shay oo dagaalka wax ka tiri kara. Ta koowaad waa giraanta suuban ee dhalaalaysa marka ay la timaado qof aan dhimanin. Ta labaad waa toore gaar ah oo dili karta qof aan dhimanin. Kan ugu dambeeyana waa shaar u adeegaya sida hubki barkaysan. Mehmed wuxuu doortay mid ka mid ah farcankii Hakan inuu noqdo ilaaliyaha si uu u hogaamiyo dagaalka ka dhanka ah kuwa aan dhiman, sababtoo ah awooddiisa xirfadeed iyo qalbiga saafiga uu leeyahay. Dhanka kale, Hakan wuxuu bilaabay inuu xanuunsado iyadoo shaarka uu dheeli tirayo xaaladiisa maskaxeed iyo jireed ee uusan weli helin. Weli ma uusan rumaysan sheekada ku saabsan ilaale iyo kuwa aan dhiman, wuxuuna u malaynayaa in Kamaal iyo inantiisa ay maandooriyeen. Dhanka kale, Tekin iyo wiilashiisa waxay aad ugu dadaalayaan inay xogta ka soo saaraan Memo. Aabaha iyo inantiisa waxay ka warwarayaan Hakan ma tababaran oo diyaar uma aha inay la dagaalamaan waatida, sidaa awgeed waxay qorsheynayaan inay tababaraan. Si kastaba ha ahaatee, Hakan meesha uu ka baxsado oo uu ku laabtay aqalkiisa, waxa uu ka war helay in Tekin uu wax ka weydiinayay agaaraha xaafadda. Isagoo oo argagax ayaa waxa uu si dhuumashaha ugu soo galay qolkiisa, isagoo rajaynaya in warqadda ku jirto, balse uu ku guuldareystay. Si uu u helo isla markaana Hakan waxa uu ogaaday sanduuq yaab leh halkaas oo uu ka helay qori iyo sawir hore oo Kamaal Nasid ah iyo nin kale oo la oran jiray Mark. Waxaa la qaaday sawirka 1989. Zainab ayaa timid iyada oo ka raadinaysa goobtiisa, iyagoo ka hadlaya fariinta Tekin uu u soo diray Hakan si ay ula kulmaan fagaaraha sultanameed. Waxa uuna u malaynayaa in Memo halkaas uu ugu yeeray. Hakan ayaa aaday fagaaraha isagoo ay wehelisay Zainab. Goobta xigta, Kamaal wuxuu aaday isbitaalka si uu u arko Susan una weydiiyay macaamilkeeda oo dalbaday shaarka talismaaniga ah. Kamaal waxa uu malaynayaa in Susan ay tahay furaha lagu ogaanayo kuwa aan dhiman karin, laakiin aad buu uga dahaytaa. Masaar oo u labisan sidii nin caadi ah ayaa mar hore dilay Susan, isagoo u malaynaya inay meel kale kusoo bandhigi karto aqoonsigiisa. Tekin ayaa u adeegsanayay Memo damin oo uga dhigaya Hakan. Markii Hakan uu isku dayay inuu la hadlo Memo, Tekin ayaa ku soo riday 4 xabadood. Waa uu yaabay maxaa yeelay rasaastu ma disho Hakan. Zainab ayaa u soo gurmatay Hakan maadaama uu ku daciifay rasaasta joogtada ah. dhacdadii dhacday Tekin waxa uu sheegay booskiisii Masaar oo aan ku farxin xogta. Kadib Hakan iyo Zainab waxay ku soo laabanayaan goobta sirta ahayd ee farmasiga Kamaal. Hakan ayaa weydiiyay Kamaal sawirka uu ka soo saaray sanduuqa aabihiisa. Kamaal ayaa sheegay in uu saaxiib dhow la ahaa Nasid, waxaana Muraad u soo baxay inuu ahaa Muraadkii ka hor yimi Hakan sida ilaaliyihii. Hakan ayaa markaasi ka soo saaray Muraad inuu ahaa aabihii dhalay oo dhintay isagoo la dagaalamaya maatida aabihiis. Nasid Kogmas waxa uu qarinayay runta sanado badan si uu u ilaaliyo wiilkiisii uu korsaday. Hakan wuxuu Kamaal iyo Zainab ku booriyay inay helaan ruuxa aan dhimanin ee xun oo ay dilaan sida ugu dhaqsaha badan. Qofna ma garanayo waxa qofka aan dhimanin sida u eg yihiin iyadoo aan lahayn giraanta istilsamaaniga ah si loo aqoonsado isaga. Maadaama Mr. Erdem uu la dhacay falka geesinimada ah Hakan, waxa uu sheegay isku duwaha guud ee Leela inay shaqaaliso Hakan isagoo ka mid noqonaya security-ga, yacni amniga. Meel kale, Tekin ayaa u sheegay Masaar inuu hayo macluumaad qiimo leh oo ku saabsan Hakan. Waxa uu soo bandhigay fayl ay ku jiraan taariikhda Nasid Kogmas, wuxuuna soo jeedinaya in laga yaabo in lagu xiro Hakan iyo shaarka. Wuxuu baranayaa xaqa farciisa iyo sida ay Istanbul iyo adduunka uga badbaadeen balaayo iyo abaar ay u keeneen Amodlas. Wuxuu ku tababaraa sida uu u xakameyn lahaa xaaladiisa maskaxeed sida shaarka taliska oo uga ilaaliyo. Kamaal wuxuu gacanta geliyay dhagax kulul oo ugu dulqaadan lahaa xanuun, barana inuu la dagaalamo. waqti kadib Kamaal wuxuu u soo jeediyay Hakan iyo Zainab inay la kulmaan mas'uul sare. Midka daacadda ay haysta garaanta talisnimada sida aan dhiman karin ayaa laga yaabaa inuu daba galo garaanta. Hadda waa inay hubiyaan inay ku jirto gacmo ammaan ah si uu ilaaliyaha u helo. Waxay u baahan yihiin shaarka, taas oo uu leeyahay fargalkaas oo mas'uulka sare uu haysto, iyo sidoo kale tooreyda. Sibdaro kuwa badan ee daacadda u ah Hakan waxay leeyihiin qaybo kala duwan, waxayna u muuqataa siyaasadooda inaysan la hadlin midba midka kale. Kadib markii mid kasta loo xil saaray inuu ilaaliyo shaygiisa talisnimada ah, Hakan iyo Zainab ayaa isu diyaariyay inay la kulmaan daacadda sare. Kamaal ayaa galay isbitaalka si uu u eego geerida Susan. Waxa uu weydiistay security-ga meesha jooga muuqaalada wadooyinka isbitaalka. Masaar waxa uu aad uga carooday Erdem oo isku dayay inuu shaqaaleysiyo shaqaale cusub oo ammaanka ah, iyadoo aan la xaqiijin in lagu bedelo xubinta cusub ee loo malaynayo inuu yahay Hakan. Inuu sheegay inuu u dabaaldego guushii ay ka gaareen qadaraaska Hagia Sophia. Taa beddelkeeda, Mr. Erdem wuxuu iska inatay in ay guusha ku timid kadib markii Masaar uu dilay Gökhan. Hakan iyo Zainab waxay yimaadeen guri meel cidlaha ku yaal.
markii ay guriga soo galeen waxay la kulmeen nin iska dhigaya wiil uu dhalay ninka daacadda u ah. ninkii ayaa magaciisa ku sheegay inuu yahay Kaan. waxa uu sheegay in hooyadii ay maskaxda ka jiran tahay kadib dhacdo 7 sano ka hor ah oo aysan qofna la hadlin tan iyo markaa. kadib qolkii ayuu ka baxay si uu la socdo Hakan iyo Zainab iyo haweeneyda loo maleynayo hooyadiisa. markuu daacadda sare gartay calaamada mansiiniga ee ku taal laabtiisa ayay ugu dambeyntii afka kala furtay si ay u muujiso in ninkan uu aan ahayn wiilkeeda iyo in la qiyaameeyay haweeneyda. sidoo kale waxay gacanta ku siisay faraanti xurmad leh balse dhagixii ayaa la waayay. Kaan ayaa qolka soo galay isagoo doonaya inuu dilo laakiin isagii ayaa meesha ku dhimanaya oo waxa dilaysa haweeneyda. waxa ay burburiyeen muuqaalada CCTV-ga ka hor inta aanay koox uu Kaan u shaqeynayay aysan soo gaarin goobta. Hakan iyo Zainab ayaa ka baxsadeen gurigii. Mr. Adam waxa ka go'ay inuu Hakan noqdo booska amniga. Leila ayaa ka codsatay inuu yimaado xafiiskooda oo uu la kulmo Mr. Adam shakhsi ahaan si uu ula hadlo shaqada loo soo bandhigay. markuu Hakan yimaado waxa uu la kulmay Masaar ma oga in Hakan uu yahay mid ka haya shaarkii uu raadinayay. Masaar waxa uu soo dhacay telefoon iyadoo la weydiinayay halka uu jiro Kaan. waxaan ogaanaa in Masaar uu hakiyay oo soo diray ragiisa guriga weerarkana ka dambeeyay. uu ogaaday arrinka Hakan wuxuu aqbalayaa soo jeedinta ah inuu ka shaqeeyo qaybta security-ga ee amniga isagoo rajaynaya inuu heli doono macluumaad dheeri ah oo ku saabsan aqoonsiga dhabta ah ee Masaar. muuqaalkana intaa ayuu ku eegayay. haddii aad doonaysid inaad qaybo kale ka soo sameeyno filimkan dhanka commentiga nagula wadaag. waa anigoo Aflaan Media waxaan si sharaf ah kaga codsanayaa channelka subscribe dhahdo like-na nagu dhiirigeliso. mahadsanid.